Imisa ayaan ku joojin karnaa markay aan gaarno imisa caagadood ayaan ku joojin karnaa ama se waqtigee ayaan joojin karnaa saliidan markay madaxaaga u gaarto timahaaga isku filnaansho ay gaaraan yes waa laga nasan karaa baashan isku filnaansho ay gaarto awood ay u leedahay kaligeed inay la falgali karto timaha kale ay iska celin karto isku si wax u qaybsanaa fiiri wajigayga wax kala fiiri saas mujida markaan u soobinayo ma ku dhac macnahaas fadlan leegsi adigoo raalli ah waan ku maasantahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waa idin salaamay waa anigoo muuse kulan leh bidar caawiye meeshaad nagala socotaanna waa taqaanaan waa goobtii gaashaanbuurta ee ku dagaalamaysay ee talada ku wada qaadanaysay wax isfahansiinaysay run ahaantii waa dadaalnay gaashaanbuurta haddaan nahay waa dadaalnay wax badan aan qabanay isbeddel aan suubanay wax la taaban karo waa sameyn horta qof walba iyo dadaalkiisa waay waxaa la dhahay qof walba wuxuu cuno ayuu eedamiyaa soomaheen taas ay ahayd maamaha jirto oo Soomaaliyeed qof walba wuxuu cuno ayuu eedamiyaa marka annaga waa dadaalaynaa qof walbana wuxuu dadaalku geysto ayuu helayaa mireeda marka muhiimadda ugu weyn waxay tahay maaha inaad mashquul kale wax kale ku mashquusho waxaad ku mashquushaa oo bas adiga madaxaaga barashar saar kaaga adiga saad u qabsan lahayd aad u xoqan lahayd aad saas u suubin lahayd kaaga sameey mid kale ma lagaaga baahna mid kale ha isku mashquulin imisa maalin ayuu ku qabtay imisa maalin ayuu ku gaaray imisa maalin ayuu ku suubiyay kaliya waxaad weydiin kartaa aleele qofka anigoo kale isoo weydiin kartaa dhigi kartaa imisa maalin ayaa intaas ku suubisay imisa maalin taas waa okay aniga xaggayga markaan ku eego laakiinse hay soo weydiinin fadlan qofkaas imisa maalin ayuu ku suubiyay hay soo weydiinin taas qofkaas shakhsiga waa kula mid wuxuu ku dhaamo ma leh aniga waxaan ku dhaamo ma leh laakiin waxaan ku ogolay bas inaan ku dhaho intaas maalin ayaan ku suubiyay oo ku ogolay laakiin qofkaas hadduu rabo hal bil ku suubiyo ilaa 7 bil ku suubiyo asaga u taala laakiin adiga muhiimadaada waxay tahay madaxaaga adigana ka shaqeysa adiga barashar adiga isar meel kale ba ku mashquulkaaga aad ku bixinayso qofkaas waqtiga aad ku fikirayso inaad ku bixisid imisa maalin ku suubiyay ما قبست فيري دقيقة وفكر دقيقة حكا عاونيس أرت ملا سعتها هل دقيقة أكو بيردرينس إمسو كسوبي إمسو مالو صانيا إمسو كان يال أنت تفكريز ولا لك واجد طلب ده عادي أنا وجوابين وحوضه يقرأ النقاط أرتر نانتي وحنا نتكعب سنة فضل أنا معلم ميه لكن بس واسدير قلنا جست واسعاوننا واسدير قلنا إذا كنت لوينا الكلا أنا ترى إيجاشان أنت سكليوات تلا اسود درسنا الروح أنتي أنا وحبنا إذا كفايدي والله wax badan ay ka faa'iido mar walba waa idin sheegaan wax badan ay ka faa'iida waxyaabo badan waa yaragno badan ay ka helaa alxamdulillah taasna idinka u sababa marka isku maatikeen wuxuu yahay kaliya talis dhaafsi dadka fadlan aan videoga socda aan la soconin commentida soo qorisan iyo videoga socda isku fiiriya qof wuxuu ku soo qorayaa numberkaaga isi videogana numberkaaga ku qoran qofkaas marka maxaa si ka isheeg ilaahay ku dheer qofkaas maxaa ku qiimeyn karnaa adaan ku su'aalay qofka ku dhahayo numberkaaga fadlan ii soo qor oo numberkiina uu meesha ku qoran yahay maxaan suubin karnaa marka ii sheeg maxaan suubin karnaa qofkaas waxa looga baahan yahay inuu fakara looga baahan yahay marka ani waxyaabo kale idin tusaayo waa la yaabaysan qofkaas oo kale marka arko aniga waxaan dhahaa see wax ugu tilmaami kartaa hadda qofkaas see wax ugu tilmaami kartaa qaabkee ku faahfaahin kartaa marka xumaan maaha laakiin fadlan qofka markuu rabo inuu wax weydiiyo bal videoga ha fiiriyo bilaagu ku jira ما قام فيديو ده مو كبلاودا ما قرناي سو وح وبلاو قابك وح بلاو ما قرناي بس نمبرك ما أركو ما دافيا ما قرناي مرك نمبرك هو كبلاودا فيديو جلسي نمبرك هو كبلاودا مرك فضلا ماشي أسوي وقرن تاسن وحواد وسوي قلم واي أخيارتا أرنتا مرك وحيته هل دجال أجرو دجال أنا لقوها يا دجال كاسو حنقوها كوي فيدها كده هي كوفيدها اللي قدناي دجال قاري دبي دريمو يعني عوا أخيارتي وياش جلب علستي كوفيدها وسوقي بيرا مفهمتي نماركا مركا دجال عادي وضان مفهمتي مركا أخيارتي وحلي هاي أضل قات وحاس والصبرة نماركا كوفيدها أينو يقرر الجيل دليل ركلا جوكتو وكوفيدها أبان مركا واسك كذا أنا واقف جورن كوفيدها واقف جورني مفهمتي فضل نضل قاتها أنا لا يابنا مدة كله أو حكتو دجال كاس جنواي كاس كوفيد وحواي نقونا يا مد معنا إيزي نقونا إيزي ليب مالك كاس
easy noqonaya kaas waxa way markii la xisaabo wuxuu noqonayaa mid yariis noqonaya mideeda kale xigto dhalinyarta aan bidaarta lahayn haddaan meeshii ka soo baxnay aan jidkii hore ku soo laaban fadlan na soo dhaweeyo dagaalka naga dhaafa war waxayba diidanyihiinba mudaharaad cad ee wadan nimankii dhuudhuumin jiray ayaa maqaayadii shaaha kala cabaa iyagoo bilaa koofiyada shaaha kala cabaa meeshii xariiftankii ay kula jiraan adiga nimanka line up ka kusoo laabtan baan line up kii oo mutaqaana team waxay iska heli jireen oo line up ka maqan yahay oo laaciminta ay fadhiyaan macnaha difaaci uu ka maqan yahay weerarkii uu ka maqan yahay maanta niman waxa dhexdii uu ka maqan tahay niman jilicsan heli jireen niman waxa soo baxay weerarkooda baalayaashooda duulaayo difaacooda adag ee boorteeri qatar wataan oo de kala xirana soo baxay marka waxay leeyihiin war nimanka meeshooda hormay ku laabtaan macnaha serbiyadooda may ku laabtaan macnaha divisionka imaadeen way ka xiyeen marka intaasna waa iska kaftan waaye xumaan ma jirto waa dhiirigelinaa fadlan hal is dhiirigeliyo run ahaantii waa kaftamayna kaftan waa loo baahan yahay hal is dhiirigeliyo fadlan waxaa jiro walaalo aanan garanayn baashaan saliidan waxay tahay darmarolkan waxay tahay aan garanayn fadlan geey waxaad tiraahdaa halkaasaa lagu iibiyaa iibsa dheh walaalkaa dhiirigeli war walaalkaa u sheeg war wax isiinta waa la heli karaa laakiin wax isku sheega lama heli karo wax isku sheega waxa waaye waa qaali waaye walaalkaa wax u sheeg fariinta gaarsii wax fahansii ma fahanti marka waxaan jeclahay qof walba inuu madaxiisa waqti geliyo war waqti geli markaan dhahay waqti dheer maaha madaxa waqti geli intaad ku fakaraysid imisa maalin uu qabtay iyo imisa wuxuu suubiyey imisa kanuu yaal iyo imisa iska dhaaf kaliya waxaa lagaaga baahan yahay adiga nafsadaada ka adkow taada meel saar dhalinyara waxay leeyihin 20 beri aan isticmaalayna wax nagama soo bixin 20 beri ayaa qabsatay 20 beri way kugu yartahay fadlan 40 maalin qabso ma fahanti waa helaysaa qeyr ku tasho shar waxba kaama taraaya weliga qeyr ku tasho shar wuxuu kaa qaadaya male idinkana su-aasha kale muhiimka waxay tahay fadlan imise ayaan ku joojin karnaa markay aan gaarno imise caagadood ayaan ku joojin karnaa ama se waqtigee ayaan joojin karnaa saliidan tusaalaha hadda ugu fudud aan siiyo geed haddaa beerato oo waraabkiina aadan siinin markaad macnaha geedkii beerto oo biyo maalmo aad siiso aad ka joojiso geedkaas miyuu sii baxaya mise wuu qalalaya ilaan geedka isku filnaansho ma gaarin wax isku filnaansho la dhaho uu gaaray geedkaas ma jiro muxuu marayaa meeshii oo garabka u baana waa ilmaha yar oo kale ilmaha dhasho oo kale muxuu baahan yahay in caan la siiyo la xanaaneeyo si fiican looga taxadaro ilaa uu gaaro isku filnaansho kaligiis wax walba qabsan karo ayay hooyada fasaxdaa inta kale dhan waxa waaye wuxuu ku xiran yahay waalidku ku xiran yahay ama walaal wuxuu rabaa noqdo dad buu ku xiran yahay weli isku filnaansho ma gaarin qof cunto karsan kara ma qof cunto soo qaadan kara ma qof walaaqan kara ma qof cuni kara ma aha intaasoo dhan wuxuu baahan in lagu caawiyo yes marka muhiimadda waxay tahay dulucda hadalka aan usoo jeesano dulucda hadalka waxay tahay asxaabay tintii markay tinta kaa dhimanayso hal maalin kuma dhimato 2 maalinna kuma dhimato sanadna kuma dhimato sanooyinna kusoo dhimata dhac tartiib ee usoo baabaa ilaa iyo ay ka gaartay war xaaji bidaar lagu dhaho ilaa ay ka gaarto waxa waaye baasha waxa waaye taas oo soconaysa marka waxaan ka wadaa geedkii wuxuu usoo baxayaa sidii timihii ay kaaga baaba'een ay usoo baxayaan tartiib markay madaxaaga u gaaro timahaaga isku filnaansho ay gaaraan yes waa laga nasan karaa baashaan markaad 6 bilood oo kale isticmaasho waa ka nasan kartaa bil 2 bil waa ka nasan kartaa intaas waa ka nasan kartaa laakiin 6 bilood isticmaashay wax fiican ka darinta waa ka nasan kartaa kadib start dhigi kartaa si tintaada markay u gaarto isku filnaansho kugu filan oo adiga ku anfacayo markay gaarto waa meesheeda hadda aniga laga bilaabo bilahan hadda waa shalaya laakiin se ka soo qaad sanad ka hor iyo ma shaleynay waxa waa tinta inaa dhulka wada dhigo ahayd awal marta dhulka wada dhigi jiray caadiyin ba dhulka markii hore ii ahaydba qofna ima dhigi karin ba timaha dhulka waxa u dhigtaa bidaar u dhigi jirtay ima dhigi jirin ba sababta anoo timahayga weyn ah ama dhulka la dhigi jiray dhulka ma ahan wax kale ma suubin jirin inta ma xiirin jirin waa hadda ma sidii ilmihi oo kale ama meeshan soo xiirtay faanti oo nin ooba
soddon jir camal meelaan soo xirtay 20 jir camal ma fahantay taasna waa meesheeda laakiin akhyaarta fadlan ha ku degdegin tintaada markay ku soo baxdo inaad joojisid saddex caagadood markaa isticmaashida timo fiican isku xirto hore ka joojinaysa may ha soobin waxaas ha soobin fadlan 6 bil markaa isticmaalaysa ama 5 bilood ama 6 bilood ka soo qaad markaa isticmaalaysid kana soo 2 bilood ilaa aad ka arid ku soo laabatintaada isku filnaansho ay gaarto awood ay u leedahay kaligeed inay la falgali karto timaha kale ay iska celin karto isku si wax u qaybsanayaan markaad aragtid markaas ha laakiin adigoo geedkii abuuray geedkii markuu baxay waraabkii ka joojiyay haddana muxuu noqon geedku babay ilaan geedka markuu weyn yahay lama waraabiyo arti alxamdulillah alla awoodu siiyay xeedadiisa meel fog ay ku jiraan biyo uga soo qaataa marka ulajeedadan ka wada waxay tahay geedku muxuu suubinayaa waay watimaha maxay suubinayaan tartiib 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 waqti marka waqtigaas waxaa laga rabaa adiga inaad u dulqaadatid intaas aad u sabartid haddii wixii hooshi waa bilowday waa ku jirtaa hooshi adigoo ku jiro in haddana aad meel dhex aad ku joojisid ha suubinin fadlan ha samaynin timahaaga markay isku filnaansho gaaraan yaysan timahaaga dib kaaga daadanin dhaqsiyaysan dib kaaga daadinin isku filnaansho markay gaaraan isku filnaanshahaas oo mataqaanaa dee waa og tahay waba isku filan yihiin markaas dee maba u baahan timaha kale la falgalaan ayada kugu dara midna markaad dhahan fiiri wajigayga wax kala fiiri saas mujida markaan u soobinayo ma ku dhaca macnahaas yes dhiigi waa dhaqaaqaya fiiri markaa ku masaajaysid laa saan dheh just waxa way dhiigi uu dhaqaaqa dhiigi markuu dhaqaaqana socod ku soobiyo isbedelka halkaas uu ka imaanaya macnaha mid dhacay saan waa faantay soma waa inaan faanteen ayaan jeclahay marka fadlan madaxaaga ku dadaal waqti gali hal tusaale aan siinaa oo tusaalooyinka fudud ka mid ah waa inta si doonaa war dadkan dhalinyartan taraaglayaasha maxay suubiyaan war ayagoo baabuurkooda qalabkooda u saaran yahay way xoqdaan taksiilayaashan waxay ku leeyihiin alaabta xaafad adigaba taksiga adoo ku jira soo qaado ma fahanti taksiga adoo ku jira soo qaado abo war waxaan ku dhahay qof walba shaqadiisa asoo ku jiro ha isticmaalo shaqada waxaad leedahay waqti aad ku nasatid oo ku suubisid waqtigaasna ka faa'iideyso ma fahanti ka faa'iideyso marka way ku anfacaysaa marka madaxaaga saan u masaajeenaysid way ku anfacaysaa waa waxyaabo ku anfacayo dhiigaas dhaqaaqaya ujeedidna wax kale ma runtii wax kale ma muxuu ku taraa mataqaanaa de daacadda diloodo ilaan baashi si fiican u galaysaa dhiigiyo si hore ka sii raaca bixitaanka dhiigaasna marka madaxu wareegi waaya ma fahanti marka adigoo hadda suubiye musqusha aadina soo qubaysanin macnaa madax haddana aqalaji suug baa qaboobaysaa ha suubinin taas ha samaynin marka hadda macnahayga hadalka waa fahanteen ayaan jeclahay fadlan akhyaarta waa mahadsantihiin hal is caawiyo walaalka caawi waxa isku sheegan waa dahab waa qaali dad wax ku siiya waa arkaysaa laas wax ku sheego ma helaysaa allah marka fadlan walaaliin caawin akhyaartan waxaa ku mahadsantihiin sida sharafta leh aad isku caawisaan ayaan aad iyo aad abaal idinkaga hayaa fadlan legacy adigoo raalli ah waan ku mahadsantahay